ياسمين سبي عارف سعبيه سبي عارف سعبيه ميس كان ku qadaynayna baa wada fadhino waxay ku bilowday Soomaaliga aad uma garanay marka inay noo dhuumanayso waan malaynayaa hadda arrimo runtii aad u fiican oo ila abaara ay tahay bay sheegtay Fairlacio in dhalinyaradu qayb ka noqoto go'aamada siyaasadda ama power corridors ay joogaan faa'iidooyin badan baa ku jira aad u badan baa ku jira siday muhiim u tahay in dumarku joogaan waayeelku joogaan raggu joogaan dhalinyaradu inay joogaanna muhiim u tahay si markaa go'aamada siyaasadda ee nolosha mujtamaca jihaynaya ay u noqdaan kuwo miisaaman oo ka jawaabaya baahiyaha kala duwan ee qaybaha kala duwan ee bulshadu leeyihiin marka ka muuqashada iyo ka qayb qaadashadu saa'id bay muhiim u tahay waxaad hadal qaaday hadaanan khaldanayn inay dhalinyaradu dhex gashay laakiin okay horta mid inaan isla xaqiiqsanaa waa muhiim dhalinyarada sidaa uu sheegay professorku iska censuska iyo tirakoobku mujtamaca waxa u badan dhalinyaro tirada dadka marka taa macnaheedu wuxuu noqonayaa dhibaato hadday dhacdo dadka ugu badan ee ay saameynaysaa iyagay noqonay haddii khayr iyo wanaag dhacaana waxa cidda ugu badan ee beneficiaryga iyagu noqonay anigu waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay siyaasadda gasho ama inay hogaaminta qayb ka noqoto oo wax dhisidda iyo talada ay qayb ka qaadato kuma jirto uun wanaag iyo dan guudiye waxay sidoo kale badbaado u tahay nationka la dhisay ayay badbaado u tahay oo waaba dee khayraadkii ugu weynaaye loo isticmaali lahaa si wax loo dhiso baa iyagiya awooddii aan sheegaye diyaarka ahayd markay dhalinyaradu siyaasadda markaa inay galaan ma inay tagaan miisaska talada waxay nooga baahanaysaa inaan sawir fog ka eegno waa maray xeerarka yaalla ee ka qaybgalka siyaasadda xeerasha haga maxaa arrinta ay ka leeyihiin inaan eegno weeyaan ama dastuurka ha noqoto ama xeerasha kale ee ka farcama ha noqoto case baan idiin soo qaadayaa aada u muhiima oo aan isleeyahay waxbaa laga baran karaa Somaliland waa prime example wax badan laga baran karo oo la xidhiidha hay'ad dhisidda doorashooyinka iyo is-ogolaanshaha mujtamaca Soomaalida waxaan qabaa inay Somaliland u noqon karto prime example aad iyo aad u weyn waxaan u malaynayaa inay ahayd xilligii madaxweyne Siraayi joogay meesha ee uu talada hayay xilligaasaa waxaa la bedelay dastuurka ama xeerasha wax laga bedelay si da'da age-ka lagu gali karo qofka lagu dooran karo loogu soo dhaweeyo heer dhalinyaradu ay ka qayb gali karto marka da'dii baa la yareeyey waxaa soo baxday markaa in doorashadii immediately ku xigtay xilliga ay dhalinyaro badan soo galaan aad u badan soo galaan laakiin waxaan isleeyahay waana ra'yi shakhsiya tani waxaan isleeyahay in dhalinyaradu ay si abwaaja u gasho power corridorska ama miisaska talada laga soo gaariyo keliya naguma filan waxay nagu filan inaan taa ka sii durugno oon u durugno may noo diyaarsan yihiin jiil qayb ka noqon kara go'aaminta talada oo caqli iyo xuduud iyo maskax iyo faham fresha ku dari kara maaragtay afkaarta shaqeynaya marka sidii laga filayay iyo wixii ay ahayd maaragtay mucjisadii la filayay in markii la qaraxdo ka dhalato in dhalinyaradu siyaasadda gasho may noqon dhalinyaro saa'id u badan baa gashay siyaasadda Somaliland xilliga golayaasha deegaankay soo galeen electionska waxay soo galeen maaragtay baarlamaanka marka laakiin isbeddelkii mucjisada ahaa laga filayay in arrintaasi dhaliso maydan maxaa markaa laga baran karaa meesha imanaysa waxaa laga baran karaa in jiilka dhalinyaradu inay helaan tusaalayaal fiican tababaro fiican awoodis iyo capacity maaragtay in awoodooda hogaamineed iyo awoodooda fikir iyo awoodooda aqooneed iyo awoodooda wadaniyeed in la dhiso oo la tayeeyo ayaa marka hore muhiima marka meeshii lagu exercise gareyn lahaana ay saa ku tagaan marka waxaa imanaysa awood iyo madal isle oo isbeddel dhalin karaa imanaysa
now another example baan idiin soo qaadanaya oo maaragtay aan isleeyahay waxbuu ka bedeli karaa si aan u eegayno dhalinyarada iyo siyaasadda ama wadan dhiska. dhalinyaradu maanta way ka daashay dhalinyarada soomaalida way ka daaleen maaragtay qaabka hogaamineed ee jira. taa waan isku raaci karnaa. haddaan Soomaaliya tusaale caadi u soo qaadano, anu shakhsiyan waxaan u arkaa mushkilad hogaamineed baa jirta. afka waa laga yara dhowdhowaayo, waxa laga yaabaa in maaragtay effect laga baqayo, laakiin runtii waxa weeye Soomaaliya waxa ka jira hogaamin la-aan baa ka jirta, ama hogaamin aan hayn tayadii iyo awooddii ay ku qaadi lahaayeen himilada shacabka iyo meeshii la gaarsiinaa. marka waxaa jira deficit hogaamineed, qof ma sheegayo, laakiin deficit hogaamineed baa jirta. haddii uu jiri lahaa qof keliya oo qaada himilada oo si dhaba action ugu bedela himilada, haba yaraada actionkaasi, waxaan qabaa isbedel la arki karo buu dhalin lahaa. tusaale, doorashooyinkii dhawaa ee maaragtay ka dhacay Somaliland again waan ka aragto, waxaan tusaale fiican bay noqon karaan dhanka hay'adiska iyo maaragtay doorashooyinka iyo ummaddu siday isku xamilaysay isku qaadayso. waxaa jiray nin dhalinyaro saaxiibkaya oo ku ololeeyey aragti iyo afkaar totally ka baxsan oo ka duwan waxa Soomaalida dhexdeeda ka shaqeeya. si aad xil u hesho waa inaad taqaanid maaragtay mixnada iyo fajida iyo wax isku xidhka iyo waa inaad taqaanid shaqooyinka iyo shaxda reeraha, waa inaad taqaanid power brokerage, waa inaad taqaanid oo fahamsan tahay powerka, waxyaabo badan oo saas ah oo maaragtay waa inaad wax badan oo qiimo ka tanaasulshid si aad ugu bedelatid inaad heshid power. sax ma qaadan. wuxuu ku ololeeyey qiyam iyo akhlaaqiyaad aynaan la qabsanba inagu, oo qofka Soomaaliga aan ka gadmayn marka siyaasadda laga sheekeynayo. wuxuu ku ololeeyey inay dadku walaalaynu nahay. marka wuxuu rabay inuu maayir ka noqdo magaalada Hargeysa. walaalaynu nahay, muhiim maaha inaan laba qabiil ka kala dhalanay, muhiim maaha inaan xaafado kala duwan degannahay, waxa muhiim in mustaqbalkeenu isku tolan yahay. adiga iyo aniga mustaqbalkaan iibsanayno waxaan gaari karnaa inaan is ogolaano, isla fahanno maxay naga dhiman, maxaan qabsan karnaa, halkeen u soconaa, halkeen ka dhaqaaqayna. akhlaaqiyaad iyo qiyam noocaas oo kale ah buu ka gaday dadka long time intaanu gelinba maaragtay siyaasaddana arrintaas ka soo shaqeynay. qabyaaladda in maaragtay hoos loo dhigo, wadaninimada kor loo qaado, in dadka walaalnimadooda la dhiso, in maaragtay bulshada la isku tolo, in aragti la gaari karo la sawiro, aragtidaana dadka loo abaabulo. ya ayuu muddo dheer anaa ka mid ah dadka ay soo wada shaqeeyeen, muddada dheer arrimaha ka wada shaqeynayeen. arrintii mucjisay ku noqotay siyaasadda Somaliland. xilligii doorashada waxaa soo baxay 26,000 oo cod buu ka soo baxay haddana khaldanayn, 26,000 votes oo noqotay record aan horeba uga dhicin doorashooyinkaa ka dhacay Somaliland. soon after mayor buu noqday. I think inay malaha hadda dhowr sano ilaa 45 sano ayuu hadda mayor ka yahay magaalada Hargeysa. Soomaalida maxamed meel ay joogtaba ma aha Somaliland iyo Hargeysa. Soomaalida maxamed meel ay joogtaba way la dhacsan tahay dadaalkiisa. oo waxyaabihii uu ka sheekeeyey iyo valueskii uu soo dhigay ee uu ku ololeeyey dadku ugu leeyeen, natiijooyinkii ka dhashay natiijooyin la mahadiyey bay noqdeen. marka waxay tusaale fiican u noqon kartaa. looma baahno in dhalinyaro siyaasadda iska gasho. waxaa loo baahan yahay dhalinyaro fikrad xora haysa, aragti nadiif haysa, oo ka xora waxyaabaha wasakheeya damiirka qofka hogaamin iyo boos sare raba, ee ummadda inuu fikradeeda iyo hamadeeda qaadan raba. qof sidaa u diyaarsan oo le capacity-ga iyo maaragtay intellectual capacity-ga iyo kartida iyo damiirka iyo maskaxda waxaa ku dhiiran karta kadibna fulin karta ayaa loo baahan yahay inay spaceska galaan. haddii iska noqoto un dhalinyarada siyaasadda ha galaan iyo maaragtay waa inay qayb ka noqdaan, well we can put there a bunch of dhalinyaraan dhigi karnaa, laakiin dee waxaad heli uun maaragtay natiijadiisa cusub baa heli, extension of what's already there. marka waxaan u baahan nahay ka hor arrintaa in maaragtay inay meesha jirto issue of capacity baa jira, markaa in la diyaarintaasay jirto, kadibna dee isbedelku halkaas uu ka imanaya. marka haddii la helo Cabdikariin oo kale for example oo badan, ama khasab ma inaan dhalinyarta ka wada arrin muhiimad yihiise 2 minute igu daro
waayo arrintaa ka hadlaynaa way yaro culus tahay marka in yaroo igu filan baan marka maaha inaan ka wada marka maaha inaan ka wada fikirno dee in dhalinyarta soomaalidu meel ay joogaan inay saa wada noqdaan sunnaha nolosha maaha laakiin waxaan u baahannahay inaan helno hogaamiyeyaal aragtida ururin kara oo dhalinyaro ah oo aanu hayn hunguri power grid iyo hunguri siyaasadeed oo lagu dhisto maaragtay dariiq gurigaaga taga intuu magaalada ka baxo gurigaaga albaabkiisa kala dariiq calooshaada ku dhammaado infrastructure iyo kaabayaal reerkaaga iyo qabiilkaaga quudiya siyaasadaan dhisayn qof aaminsan baan u baahannahay marka haddaan helno tobanaan iyo boqolaal fikradda inaga wada dhex buuxaysa all of us inteynaa meesha fadhidaa markaan wadanadeena ka yaro baxno markaaba qoomamaynu dareenaa xanjada yaraad calalayso uma quudhin dariiqyada dubay iyo dariiqyada kigaali inaad ku tuurto kas dariiqa nadiiftiisaa kaa xishoodsiinaya inaad kharibto laakiin markaad saa Jabuuti uga soo degteed sidaa uga soo degto xamar ama Hargeysa ama Jigjiga aad aragto maaragtay wax yar oo qaldan waxay naftaadu iska sii dareemaysaa inaad waa iska caadi waa la kuwii qaadi lahaa baan qaadini baad soo sii tuuraysa marka I think waxaan isleeyahay waxaan u baahannahay dareenku wuu nagu wada jiraa dareen dibdhacayna haysta dareen wixii ay ahayd inaan qabanno qabsoomi waaye iyo dareen in adduunyada kale aan si walba uga hadhsanahay maanta wuu jiraa dareenkaasi aan action ugu bedelno waxaan u baahannahay qof iyo qofof dareenkaa xamili karo qaadi karo u bedeli kara action innaguna aan ku aamini karno maaragtay fikraddaa inuu riixi karo oo u qaadi karo oo hadduu helo fikradda awoodeedii action la taaban karo ku bedeli kara waa ka baxay